Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada safar aynu ku dhex gali doono godadka madow ee sirdoonka Mareykanka. Halkan waa Area 51, maaha kaliya bar ku taala qariidada Nevada ee waa astaanka qarsoon dunida oo idil. Inkastoo aynu joogno dhammaadka 2005, haddana CIA-du waxay weli haystaan furayaal badan oo ay ku furi karaan albaabo badan oo xiran oo xitaa Koongareeska Mareykanka ay ku dhibtoodeen inay furaan. Maantana waxaa ka hadli doonaa 10 qodob oo aad u waaweyn oo ku saabsan Area 51. Beenintii dowladda Mareykanka ee beenin jirtay in Area 51 ay jirto laga soo bilaabo sanadka markuu ahaa 1955 ilaa laga soo gaaro 2013, taasoo noqonayso isku darkeedii 58 sano. Dadka sheegaya inay arkeen diyaarado aan caadi ahayn waxaa loo aqoonsan jiray inay yihiin dad waalan, laakiin sanadka markuu ahaa 2013, CIA-du ayaa qiratay jiritaanka Area 51. Waxay ogaadeen in sirta diyaaradaha U-2 iyo A-12 aysan sii qarsoonaan karin, laakiin qiraalkaas wuxuu ahaa bilowgii sir kale oo weyn. Sanadka markuu ahaa 2025, hadalhaynta ugu weyneed ee mashruuca qarsoodiga ah ee loo yaqaano Aurora. Waxaa la rumaysan yahay in Area 51 ay hadda tijaabinayso diyaarado ku socda xawaaraha hypersonic-ka, kaas oo 5 jibbaar ka dheereeya xawaaraha codka. CIA-duna waxay u aragtaa shaacinta arrintaas inay daciifinayso difaaca Mareykanka, kaasoo la tartamaya Shiinaha ama la loolamayo. Qodobka saddexaad oo ah maxay CIA-da ugu dhuumanaysaa Koongareeska? Bishii Maarso 2025, xubnaha Koongareeska ayaa dalbaday in la tuso audio dhammaystiran oo ku saabsan qirashada Area 51. CIA-duna waxay isticmaashay Black Badge. Black Badge-na waa lacag canshuur bixiyayaasha laga qaaday, laakiin aan cidna loo sheegin halka ay ku baxday. Sababta ay u qarinayaan ma aha kaliya aliens, ee waa lunsashada xisaab xirka aan la bedeli karin. Doodaha 2024 ilaa 2025 waxay diiradda saaraysaa in Area 51 ay ku keysan yihiin. CIA-du waxay had jeer ka hortagaan sharciga loo yaqaan FOIA oo loo soo gaabiyey Freedom of Information Act, waxayna ku doodaan in amniga qaranka uu ka sareeyo xuquuqda qofka. Sanadka markuu ahaa 2025, tiknoolajiyadda gacmeedka dadka rayidka ah ayaa aad u horumartay, taasoo CIA-du ku qasabtay inay dhulka hoostiisa u guuriso howlo badan oo laga qabanayo Area 51. Warbixinaha UAP ee soo baxay bartamaha 2025 waxay muujinayaan in diyaarado aan la aqoonsan ay ku dhowaadeen maraakiibta dagaalka. CIA-duna waxay isticmaashay Area 51 meel ay ku hubeyso haddii walxahaas ay yihiin sirdoonka Ruushka amba wax ka baxsan dunida. Qodobka toddobaad oo ah shaqaalaha oo loo yaqaano Ghost Flights. Maalin kasta diyaarado aan lahayn wax calaamada oo loo yaqaano Janet Airlines ayaa shaqaalaha ka qaado Las Vegas, waxayna geeyaan Area 51. Shaqaalahana waxaa saaran NDA oo loo soo gaabiyey Non-Disclosure Agreement oo aad u adag. CIA-duna waxay sanadka 2025 adkaysay kormeerka shaqaalaha si looga hortago in wax xoga ay ku gudbiyaan baraha bulshada. Dagaalka tiknoolajiyadda ee Shiinaha iyo Ruushka. Sababaha ugu weyn ee CIA-da u qariyaan xogaha 2025 waa tartan loo yaqaano Cold War 2.0. Haddii la ogaado in Area 51 ay ku guuleysatay tartanka loo yaqaano nuclear fusion amba ay samayso matooro aan wax shidaal u baahnayn, taasi waxay bedeli kartaa dhaqaalaha adduunka oo idil. CIA-duna waxay aaminsan tahay inaysan diyaar u ahayn dunida arrintaas. Qaar ka mid a dadka odorosa mustaqbalka waxay aaminsan yihiin in CIA-du ay Area 51 ku diyaarinayso qalab casri ah oo lagula tacaalo musiibooyinka waaweyn amba lagula xiriiro sirdoonno kale. Xilliga hufnaanta transparency ma imaan doonaa. Dabayaaqadii sanadkii 2025, dhowr sargaal oo hore ugu darsanaa CIA-du ayaa bilaabay inay whistleblowers noqdaan. Gabagabada, Area 51 kaliya ma aha dhismayaal ku yaala lamadegaanka Nevada ee waa suuq sir ah ee CIA-du. Inkastoo Koongareeska uu sameeyey isku dayo geesinimo leh sanadka 2025, darbiga qarsoodida ee la dhisay tan ilaa 1955 waa mid aad u weyn. CIA-duna waxay had iyo jeer hal talaabo ka horeysaa sharciga, iyadoo adeegsanayso amniga qaranka sidii gaashaanka ay ku dhuumato. Maalin uun waxaa laga yaabaa inaan ogaano waxa dhabta ah ee ka socda gudaha, laakiin ilaa markaas laga gaarayo, Area 51 waxay noo ahaan doontaa meesha ay ku jiraan amba lagula kulmo amba ay yaaliin agabka tiknoolajiyadda ay leeyihiin aliens. Igama dhadhacsan kolley waa been.